Assalaamu calaykum. Ma doonaysaa inaad noqotid qofka ugu taajirsan dadka, sidoo kale uu Rabbi subxaanahu wa tacaala kugu arsaaqo arsaaqad waasaca, jeebkaagana ay soo galaan hanti aad u fara badan? Waxaan ku rajo weynahay haddii aad sameeysid 7 qodob ama 7 cibaado oo aad joogtaysid si ikhlaas ahna aad u qabatid inaad noqon doontid qof hodana oo deeqtoon Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jeebkiisa buuxiyay. waayahay qodobka koowaad waxa weeye ashukru, ama inaad u mahadnaqdid rabbigii nimcadan kugu galladaystay. markastoo aad Ilaahay subxaanahu wa tacaala u shukridinna Ilaahay waa kuu siyaadinaya. waxaa u daliil ah la in shakartum la aziidannakum. Ilaahay wuxuu yidhi haddii aad igu shukrisaan oo igu xamdi naqdaan nimcadan aad idiin sameeyey darteed, Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu idiin siyaadinaya ama waan idiin siyaadinaya buu Ilaahay leeyahay. qodobka labaad ee arsaaqada lagu ballaariyo waxa weeyaan attaqwa ama alla ka cabsiga, ama inaad Ilaahay ka dhowrsatid. waxaa u daliila waman yattaqi Illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min haythu laa yahtasib. qofkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhowrsada, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sameeyaa makhraj oo dhibaato kasta uga baxsado meelaanu dareemayna. Ilaahay waa ka arsaaqa. qodobka saddexaad ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala arsaaqada ku ballaariyo waxa weeye at-tawakkul, inaad Ilaahay tala saaratid, keligii aad ku tiirsanaatid. waxaana u daliila low annakum tatawakkaluuna cala Allahi xaqa tawakkulihi larazaqakum kamaa yarzuqu at-tayr. xadiiskii rasuulka ee ahaa haddii aad Ilaahay u tala saarataan tala saarasho dhab ah, wuxuu idiin arsaaqayaa siduu u arsaaqo oo kale shimbirta oo kale. sababtoo ah shimbirtu subaxii waxay ka baxdaa buulkeeda iyadoo beerkeedu maran yahay oo gaajaysan, meelna waxba ku ogeyn, waxayna soo noqotaa iyadoo dheragsan. qodobka afraad Ilaahay arsaaqada kugu waasicinayo waxa weeye istighfaarta. haddii aad Ilaahay markasta u toobad keentid oo dembidhaaf weydiisatid, Ilaahay subxaanahu wa tacaalaana arsaaqadaada ayuu ballaarinaya. waxaa u daliila aayadaha bogga 2 ee suuratu nuux ku jira faqultu astaghfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil as-samaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. Ilaahay wuxuu yidhi Ilaahay waxaad weydiisataan dembidhaaf. haddii aad sidaa samaysaan, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinku arsaaqayaa hanti iyo awlaad iyo beero iyo aseendooyin iyo webiyo qulqulaya. qodobka shanaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala arsaaqada ku ballaariyo waxa weeye silatu raxim, ama inaad xiriirisid qaraabadaada. oo nabiga calayhi salaatu wasalaam watuu lahaa man sarahu an yubsada lahu fii risqihi aw yunsa'a lahu fii atharihi falyasil raximahu. qofkii doonaya in arsaaqadiisa loo ballaariyo aw yunsa'a lahu fii atharihi, qofkaasi ha xiriiriyo qaraabadiisa. qodobka lixaad ee aad taajir ku noqon kartid haddii aad samaysid ama cibaadada lixaad waxa weeye as-sadaqa. hantidii iyo dhaqaalihii Ilaahay gacantaada geliyey inaad dadka kale u baahan ee jeebkoodu yara magaranaysa dayacan yahay inaad wax ka siisid. haddii aad sidaa samaysidna xadiisul qudsi ba Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi anfiq ya ibna aadam unfiq calayk. ina aadamo wax la bax, adigana waxbaa lagu siinayaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad wax amaahisay oo dadkii garanaysaa dayacnaa ee lagu eegayey ee dartood lagu imtixaamayey, markaad wax u garatay adna Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku arsaaqaya. qodobka ugu dambeeya waxa weeye salaatu lfajri, ama inaad salaada subax u kallahdid oo aadan hurdada ku noqon. waxaana u daliila ducadii rasuulka sal lla alay slam ku yidhi allaahuma baarik liummatii fii bukuuriha. ilaahay ummadayda u barakee kalahaadeeda. waxaan rajaynayaa 7 qodob haddii aad samaysid oo mar kasta aad magaranaysa ku camal fashid oo aad joogtaysid oo cibaadada aad 7 qodob ee aan kuu sheegay hadda aad mar walba samaysid, in Ilaahay subxaanahu wa tacaala arsaaqada kuu ballaarinayo mid deeqtoon oo isku filanna aad noqon doontid. aad baa u mahadsan tahay. muuqaalkan leeg saar si asxaab badan u gaaro, siina sheer garee si walaalo sidii adigoo kale u wanaagsan oo khayrkan ka faa'iidaystaan u helo. nana soo follow garee si muuqaalo noocan oo kale ah mar walba aad ula socotid. insha Allah tacaala kanaalkayga YouTube ee Cabdiraxmaan Bucurde searching garee, halkaasaan waayadan dambe u badnahay. subscribe soo saar.